saabsan weeraradii waxashinimada ahaa ee ay diyaaradaha cadowga ee xabashidu ay ku xasuuqeen degmada Boorama iyo tuulooyinka ka tirsan bishii aynu ka soo gudubnay sodonkeedii oo ku beegnayd maalintii Isniinta ahayd waxa weligeedba xabashida caado u ahayd in ay jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya ay ku soo qaado weeraro waxashinimo ah oo isugu jira cir iyo dhulba taliska amxaarada ee macangagahi waxa uu bishii aynu soo dhaafnay sodonkeedii ee maalintii Isniinta ahayd weeraro cirka ah ay ku soo qaadeen diyaaradihiisa dagaalka oo noocooduna uu ahaa MiG-22 iyo MiG-23 degmadaasi Boorama iyo tuulooyin la xiriira duulimaadkaasi gardarrada ah waxay diyaaradaha dagaalka ee xabashidu halkaasi ay ku burburiyeen guriyihii dadweynaha iyo dugsiyada hoose dhexe ee degmadaasi Boorama iyagoo oo si xun oo waxashnimo ah oo ka baxsan bini'aadnimada u garaacay gaar ahaan bartamaha magaalada Boorama waxaana tirada guryaha ee ay cabdaaduqaha ay ka dhigeen diyaaradaha dagaalka ee fartamadooduna ay tahay ruushka lagu sameeyay MiG-22 iyo MiG-23 ay dhan yihiin tirada guryaha ay baabiyeen 70 guri diyaaradaha cadowgu waxay halkaasi ay geysteen oo kale khasaarooyin kale oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo khasaarooyin kale oo mood iyo noolba leh waxa ay garaaceen si gaar ah oo aad moodaysay in ay bartilmaameedba ay ka dhigteen dugsiyada ay ku dhigataan ardayda yaryar waxa ee aan waxba galabsan waxaana ay cabdaaduqaha markaasi ay ka dhigeen oo ay burburiyeen fasalladii iyo dugsiyadii hoose iyo dhexe ee degmadaasi Boorama ee ardayda yaryar ee da'doodu ay u dhaxayso 4 sano ilaa iyo 6 sano ay wax ay ku baranayeen tirada dadka ilaa iyo haatan ku dhintay ee weeraradaasi iyagu ku nafwaayay ee ardayda u badnaa fasalladooda wax ku baranayay waxa ay gaarayaan 66 ruux iyada oo isla mar ahaantaasina ay ku dhaawacmeen dhaawacyo isugu jira kuwa fudud iyo kuwa culusba dad gaaraya 107 qof isla mar ahaantaasina 70 guri halkaasi ay cabdaaduqaha ay ka dhigeen diyaaradahaasi xabashida ah ee bahalnimada u soo weeraray degmada Boorama hooda raacanayay cidina aanan ku gardaroonin caruur yaryar oo ardaa oo maqaarkood baranayay waxaa laga yaabaa darsiga ay qaadanayeen markaa inuu ka mid ahaa duruus diiniya dad shacab caadi u nool noloshiisa caadiya ku jiro magaaladiisi ku nool sidaa foosha xun loo laayay waxaan leenahay dadkii ay ka geeriyoodeen imaan allah ka siiyo hana ku niyasimaadaan oo ha ku calool adkaadaan annagiyo awalba dagaal idinka dhexeeyey wuxuu kuu geysto nabar aad filaysay waxaa la yidhaha naxdin male laakiin dagaalka annaga amxaarada naga dhexeeyo kollayba annaga uma daadegno heerkay u daadegeen heerka foosha xun bini'aadinimada ka fog waxashnimada ah kollayba annaga isuma quuro horay isuguma quurin hadda kadibna isu quuri mayno inaynu maatida laayno ma layno maatida waxaan loola jeeday bombooyinkaas iyo sawaariikhda magaalada meelo badan oo ka mida lagu burburiyey dad badanna ay nafta ku waayeen ama ku dhaawacmeen haddii loola jeeday haltaa laguma baqdin gelin karayo shaki igama jiro taa inaad geesinimo ziyaadaha ka qaadaysaan la dul tago oo qolwalo loo bixiyo oo wardi loo bixiyo oo shahiidiintaas bulkeedaas samayso degmada iyo gobolkaba in dadka shahiiday magacooda taalle oo loo dhiso